waayahay kulan wacan daawadayaal mar kale meel kastoo aad joogtaan weli waxaad nagala socotaan janaalka alxuriya news waxaan gudagelaynaa markana qaybta labaad ee waraysiga aan la yeelanayno gudoomiyaha guud ee shirkadda barwaaqo som oo ka mid ah shirkadaha xoolaha iibkooda iyo sidoo kale dhanka qudaarta ka shaqeeya xaji yaasiin marka la soo dhawow bal waxaad iiga warantaa waraysiga qaybtiisa labaad su-aasha kooda aan ku weydiinayo waxay noqonaysaa xiriirka aad la leedihiin maamulka gobolka banaadir iyo dowladda federaalka soomaaliya maadaama shirkad walbo dalkan ka shaqaynayso dowladdii ay la macaamilayso sharci dalkii uu ka jiro bal macaamilka aad leedihiin heerka uu leeyahay ka waran aada u mahadsantahay xasan waxaad ogtahay shirkad kasta oo dalkan ka shaqayso waa inay institution sharci soo marto maamulka gobolka banaadir waa qasbiyan in haddii la yiraahdo oo wax walba oo meeshaan ka jiro oo ogyahay oo maaragtaa ciddii wax furanaysa ama shaqaynaysa oo la socdo marka maamulka dad hadda dabcan dad gobolka banaadir ka shaqaynayo la ogyaho shaqadan hayo xoolahan soo geliyo hadda wax aan wadno ma ahan wax oo yacni aan documenti lahayn ma ahan waa wax oo sharciga oo sharciyeysan oo gobolka banaadirna oo ogyahay gaar ahaanna waaxda suuqyadu ay na ogtahay suuq kasta wax la keenay iyadu ay la socoto marka taasi haddii la yiraahdo sidaasay u jirtaa oo ma ahan wax oo la moogaan kara ma aan ahayn oo sharci darro ah ma ahan arrintaan waayahay sanad baa lasoo dhaafay oo soo dhammaado 2019 soo gabagaboobay sanad cusub aa la galay 2020 bal sanadkii hore maxaa isbedela ah khasaaro iyo faa'iido iyo caqabado intaba bal maxaa lala soo kulmay maadaama sanad walbo caqabadiisa iyo wanaagiisa intaba uu wato walaa xasano horta allaha maaragtaa allaha baro sanad kastaba khayrkiisa allana waafajiyo laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa maahmaah waxaa jirta ay leedahay sanadkii tegey ilaahow haraatidiisa naga badbaadi sanadka cusubna soo gelayana ilaahow hartidiisa naga badbaadi ilaa hal waaba uu tago waa ku dib dhiga soo maaha hadda 2019 waa tagtay haraati waay 2020 waa ku guday hadday timid waa timid soo maaha foolkay la timid marka waxaan leenahay madaxay keensatay marka hartideeda sanadka hartidiisa ilaahow naga ilaaliyaan leenahay oo naga badbaadi barwaaqay bashbashna allaha maaragta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto allahna wada siiyo haddaan marka su-aashaada u soo noqdo run ahaantii sanadkii tegey aad bay xaaladdu haddaan nahay qaybtan oo kawaanada ama hilibka iibiyo ka shaqeeyo aad bay noogu dhigtay runtii waxaa jiro si fiican ayaa maaragta la dhihi karnaa ayaa maaragta ay u taabatay dadka ka ganacsada hilibka dhacday suuqa hilib laga waayo si fiican 2019 gudeed way dhacday marmar badan ay dhacaysa xasan oo sababta waxa keenayo xoolihiyaaba waxaad la socotaa sanadkaas waxa aan kala kulnay waxaa ka mid ah kow iyadoo abaaro baahsan ay dalka ka dhaceen sanadadii hore sanadka 2017 2018 oon barwaaqo aaran yani roob fiicnaysan wada si joogtaa u di'in taa qaybay ka eeday qaybta labaad oo hadda sida maaragtaa sarifka oo kaleeto waa aad u noo taabtaa xasan oo darto kuu sheega sarifka sare kaco lacagta shilinka Soomaaliya ku shaqeyna aadna ogtaa maanta shilinka Soomaaliya isticmaalkiisa sida laga dhigay aad waxaan ugu horta waa aad u jeclaanahay kunkeena asaga inuu hore inaan la dilin horta aad u jeclaanahay laakiin haddaad fiiriso xaaladda ku sii socdo waxaad moodaa inuu asaguna dhimo rabi oo naxsh saaran yahay oo saaran yahay dhanka ganacsiga marka loo eego cid kasta Soomaaliga iyo lacagta dollarka iyo ku wanaagsan run ahaantii annagu cidda kaliya oo shilin Soomaaliga hadda ku isticmaashaan haba oo shilin Soomaaliga uusan ka dhiman xagooda idinka iyo sarifleyda annaga sarifleyda waa in wax weyn ku bedeshaan mogiya annagu badeecadayna lagu gadaaba hadda fiiri haddii aad xaafada inkay sheekadooda aad aragtid lacagta jeexjeexan waxay dhahay hilibka geeyi dhahaa suuqa hilibka geeyi noogu soo iibiyi dhahaa gabdhaha iyo islaamanka iyo bulshadu oo gobolka baa ku dhow lacagta jeexjeexan waxay dhahaan hilibka qolada hilibleeda la siiyo iyo qudaarta
maanta marka xasanow kunkiiba wax uu ka nool yahaba waxaa ka jirta haddii la fiiriyo bulshada dhexdeeda waxa wadwado waa kawaanada hilibka qudaarta caanaha blka iyo yaryaroo lamida miisaska yaryaroo lamid oo dadka yaryaroo lamidka intaasaba kunka nooga harsa intaasuu ka nool yahay intaasuu ka dhima la-yahaba haddaan aniga ay aragtideeda dhiibo inta kale waad arkaysaa baqaar haddaa tagto wuxuu ku leeyahay shilinkaan soo sarrifo aniga doolar isiyuu leeyahay inuu sida ajnabi camal marka dalkii waa isweydiin su-aal isweydiin mudan waaye dalkaanu maxaa kuu lacaga lacagtiisa horta in la helo aadaan u jeclaan lahay ilaahay waxaan leenahay maaragta lacag fiican oo maaragta 1,000 shilin lahoo 5 lahoo 10 lahoo 20 lahoo sarafkii leh 1,000 waa tiro weyn waaye hadii loo fiirsho dunida hadda boqol doolar anaga hadda aan buunihayna waa 100 shilin oo tayna hadii loo fiirsho laakiin waa ragaa horumarsaday aad u mahadsantahay waayahay bal waxaad iiga warantaa xoolaha maadaama muqdisho la iskugu keeno inta gobollada dalka laga keeno geela ariga lo-da intaba magaalada muqdisho ama deegaanada lagu iibiyo waa la keenaayo muqdisho saldhigyo bay leedahay oo lagu iibiyo xoolihii gobolkee ugu badanaa la oran karaa xilligan xoolaha xoogooda waa uu ka imaadaa walaa xasan horta dalkeenu waa barwaaqo shooran xagga xoolaha haddii la yiraahdo meel kasta waa ay ka yimaadaan inkastoo ay kala badan yihiin qaybta adiga baya bakoola u badan sida badan la ogyahay xooluhu sida badan ka yimaadaan gaar ahaan geela ariga iyo looda dhammaan adiga gobolada waxaad dhigi kartaa kala liigtaan waa sumayin aad dhigi kartaa laakiin geela maadaama koonfurtu waa aad ugu badan yahay oo kaga imaashadiisu annaga hadda inta aragtidayna Soomaaliya dhammaanteed meel kastay joogto waa xoolo dhaqato waa maaragtaa dad haddii la ilaahay uu nicmo siiyo xoolahaas maaragtaa cid kasta waa ay leedahay suuqyada marka la eego kale waxaa jirta in la isxaansado oo la yiraahdo gobol hebel oo kale xoolaha laga keeno muuqaalkiisa aad bay u wanaagsan yihiin waa ka qiimo badan yahay xoolaha kale suuqa lagu iibinayo oo qiimihiisa aad buu uga sarreeya bal gobolkee la dhihi karaa xilligan muuqaalka xoolaha laga keeno aad bay u wanaagsan yihiin suuq fiican buu leeyahay wala run ahaantii hadda haddaan taas dul istaagno qaybta hadda degmo ahaan baydhabo kale bayo kale gobolka bayo gobol maasha allah xoolaha adiga diinsoor baydhabo ilaa baahdheere kulli maasha allah xoolaha Soomaaliya ay ku faanto oo aad iyo aad u waaweyn oo maaragtaa culus oo maaragtaa u quruxda badan waa meeshaas u badan yihiin inkastoo dalalka gobolada kalena ay waxooda leeyihiin ay fiican yihiin laakiin waxaa moodaa inay xoolaha xagga haddii la fiirsho xagga tayada yani miisaanka iyo macnaha muuqaalkaba xoolahan xoolo aad u qoor badan oo quruxsan ay yihiin marka kulley taas waxaa saacidana waa un dalkan isleenaha marka la eego guud iyo dayr iyo jiidaan xoolaha way badan yihiin imaatinkooda run ahaantii saddexaas xilli adiga xilliga xagayga u badan yihiin waxaa jira sida la ogyahay daan xasan oo kaga hadla adigu hadda ma aadan ahaa jirin moogtahay eedmii ma aadan ahaa jirin waxa waaye meesha oo baadiyaha dadka xoolo dhaqatada ama waxay sameeyaan beeraleyda xilliyada oo roobku markay bilowdaan oo kay curtaan xilligaas laba shay oo ku mashquulsan yihiin inuu ninka hadduu beer lahayna beertiisii tacbado hadduu xoolo lahayna xoolihii dhaqaaleeyo oo xoolihii yani ay u baahan yihiin meeshii waxle la geeyo doogale la geeyo meesha abaartaana laga raro taasay ku mashquulsan yihiin marka saas darteed safaradooda ma badno halka xilliga xagayga beertiina waxay u soo go'day xoolihiina ay u degeen markaasoo baahidiisa gaarka iyo danihiisa guud oo markaas lagu ka fikiraa markaasuu soo safraa wuxuu markaas uu rabiyo inuu yani wax ku iib geysto soo gata uu rabiyo markaasuu sida badan soo wataa waa wax la og yahay sida badan baahida haddii danaha gaarka oo kale haddii laga reebo aad iyo aad bal waxaad iiga warantaa marka geeloo kale marka la eego hadda qiimihiisa waa sidee ma sarreeya xilligan mise waa hooseeya walaa xasanoo geelo qiimihiisu aad u sarreeya run ahaantii
geela laftiisu waa kala noocyo badan yahoo dhowr qaybood uu soo jiryaa uma iyo sugunta iyo teerso magaca waa wadaagyaa laakiin waa Yaa sii kala ah marka birimada lafteeda way sii kala tahay maasha allah sii kala ah waxaa arkaysaa hadda ana waqti xaadirka hadda neef $2,000 kala iibsaa arkaysaa ama 40 milyan oo shilin Soomaaliga ah la kala siisana arkaysaa waxaa arkaysaa hal 35 la gadaayo waxaa arkaysaa hal 30 la gadaayo waxaa arkaysaa hal 20 la gadaayo ilaa labeel dhaxo ilaa 28 kulli waxa ugu yaroon dhigi karnaa hadda maanta suuqa haddaan neef xoolo aan ka jira aad tiraahdo qiimo ugu yaroo lagu wax lagu hadda waqti xaadirka wax lagu raadi karo waa 10 milyan shilinka Soomaaliga sicirka xoolaha geela gaar ahaan marka la eego kale maadaama ay kala darajo sareeyaan bal midka birimada suguntada iyo teersada adigoo iyo dulmaraya hadda qaybta hadda aan tirinayo ma kugu daray qiimo ahaan marka hadda laga soo bilaabo sida dhexdhexaadka ah sida caadi oo hayna aan hayn lawna aan hayn oo dhexdhexaadka ah dadku wada gadan karaan dadku wada gadan karaan waa adiga 30 milyan 28 27 25 28 ilaa 15 ka yar waxa waaye waa xoogaa yar waa daciif waa 15 milyan ka xageeyo ayaa la dhihi karaa waa hay waa fiican la dhihi karaa marka waa ka